caano tayo leh oo loo bogay ilmahana aad u kubcinayaan insha Allah caanahaasi waan idin soo dhigaa saad uga faa'iideysataan hooyo waliba oo cunugeeda uu ka weyn yahay 6 bilood ama hooyada hadii ay caanaha naaskeeda uu yar yahay oo gasac caanaha ay ugu darto caanaha daasada aad bay u anfacaysaa caanooyinkan meel waliba in laga helaan rajeynaya insha Allah ha fiirinina lacagta qiimaha ay taagan yihiin laakiin waxa waa caano la hubo tayo leh masha Allah hadii hooyo cunugaaga uu yahay mid 6 bil ka weyn oo caano aad ku bilowday naaskii uu in badan cawi jiray la qabsaday hadda aad ku dhiban tahay si aad ula qabsado masaasadii isticmaal masaasada noocan oo kale aad buu u fiican yahay afkeedii sida naaskii oo kale af weyn bay leedahay cunugu ku qaldami karaa sidoo kalena habo badan kama soo baxayso caanihii unba si yar yar ugu soo baxayo waxay ka saacideysaa marka cunugii inuu u maleeyo sida naaskii uu caanihi ku cabo daawadaas aan ugu daray dhibcahan hadaad ugu dirtid cunugaaga calool xanuun isma arkayaan insha Allah wuuna ku kubcaya ilmaha kale wuu ka muuqaal fiicnaanaya caafimaadkiisana aad buu u canaan doonaa bal ila daawada ilaa dhamaadkana waxaan oo wanaagsan martaad igala soconaysiin waa Queen Dunia channel dadkii hore ila joogo waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin dadka igu cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada wax badan oo ka faa'iideysiin baan idin wadaa inta kadib waxaan hore ugu sii daadageynaa mowduuceeni maanta oo ku saabsan hooyooyinka ama caruurta sida ay u siinayaan caanaha iyo caanooyinka u fiican qaabka loo diyaariyo caanada intaas baan rabaa inaan ka hadlo dadka dhan caano way wada diyaarsadaan laakiin waxa waaye habka loo kala diyaarsado ayay ku kala duwan yihiin sidoo kale daawo waxaa jirto oo loogu daro ilmaha iyo caanooyinka naftirkooda bada'day ku kala xiran yihiin iyo caanooyin fiican iyo caanooyin aan fiicnayn jiro saad ogtihiinba soo labadan caano hadaan idin dhigayo mid walba idin tusaayo waxa waaye wadamo kala duwan baa laga keenay horta waxaan business aan u leeyahay ma ahan caanahan hadda idin tusaayo waa SMA waxa laga soo saaraa Austria wadanka la dhaho Australia soo waxa waaye caano aad u fiican waaye marmar waa la waayaa aad bayna qaali u yihiin sidoo kale caanahan kale Aptamil baa la dhahaa Aptamil waxa waaye caano aad u fiican ayadana sidoo kale waxa laga soo saaraa UK laga soo saaraa caanahan caano aad u fiican waa ayagana sidoo kale cunugana wuu ku kubcaya labadaba waan isticmaalay caruurtaydan u isticmaalay waan hubaa wax aan tijaabiyay oo aniga aan arkay oo muddo aan isticmaalayo waa wax adigu cusub ma ahan sidoo kale daawadan yar aan idin tusayaan waxa waaye caloosha loo isticmaalaa ilmaha calool xanuun uma keenayso yacni caanaha qaarkood ilmaha way dhibaan calool xanuun bay u keenaan hadii aad goojadaas yar ugu dhibcisid ugu dartid maalintii hal mar baa loogu daraa bis 24 saac soo hadaa ugu dhibcisid hadhow waxa waa cunugaaga calool xanuun way istaayeen isma arkayaan insha Allah soo waxa idin tusaaya qaabka u diyaarinayo qaabka loo diyaarinayo waxa waaye horta biyo kulul baad karkarsan oo nadiif ah tarmuuska ku shubanay tarmuuska ilmaha biyahooda lagu shubo iyo tarmuuska shaaha lagu cabo waa inaad kala saartaa oo aadan isku darsanin kan biyaha ilmaha gooni inuu ugu ahaado waa cunug waliba biyihiisa yacni hadii ay ilmahaagu ay yihiin laba mataano ama wax isku dhow da'dooda oo caano ah wada sisid hal tarmuus way shirgareyn karaan oo way isla isticmaali karaan biyaha kulul laakiin uma isticmaali kartid tarmuuska shaaha ku shubaysay inaad ku samaysid caanihii aad biyahooda ku shubatid intaas baan ka hadlayaa ina ifaanteena rajaynaa soo qaadada marka tan hada caanahan Aptamil anigu waan isticmaalayay waa number 2 waxaan isticmaalay waa cunug ka weyn 6 bilood waxa anigu isticmaalay ma fahanteen soo number 2 marka adiga ama isticmaal Aptamil ama isticmaal SMA caanaha horta qaada marka soo dirtid lama buux dhaafiyo mana la haafiyo saas baa loo isticmaalaa meesha si yar jab ku siinaysa afka dhan waa la simee qaadada markaas baad ku shubanay masaasada number waliba wuxuu leeyahay hal qaado ama halka jiko uu leeyahay halkii qaado iyo halkii number uu isku dhigmaan hadii number 5 aad geen rabtid biyaha waa inaad 5 number aad ku shubtaa 5 qaado aad ku shubtaa يعني هدي أربتي نمبر 1 إن تجيسيد وإنها تكشف تاع القادو هذا أنا وحن كشفت 3 قادو نمبر 3 بس أنا ربع إن نقصه سو دتك وحن ربعتها إن أجاذان نمبر واللي بقى هالقادو إسكودي كمان مركتي أتشن قصيصيد 3 قادو كمشويسيد وإن شن نمبر أتشن قادو أتكشفتا هدي أفريتها وإن أفر كشفتا بيهن وإن يهين بيكركر أو كلل أو النظيف soo marka intaas aan ku shubto masaasadii waxaan ku darayaa dhibcahan daawadan waxay ka hortagtaa calool xanuunka ama calool fadhiga ama calool mashiirka inta way ka hortagtaa bacteria oo caloosha ku abuurmi lahayd ugu hortagay masaasadaad waa inay karkarsan tahay waa in daboolka afka masaasada cunuga meeshu jaqaay aadan taabanin ma fahanteen
caanaha markii la qasayo meesha lama taabto hadii aad taabatid bacteria aan la arkeynin ayaa dul saarmayso oo cunuga calool xanuun u keenayso soo 5 dhibca lagu shubaa waa idin tusaaya daawadan 5 dhibcood dhibic baa tirin aad ku shubee kadib maalintii 24 saac hal mar aad ku shubee ka hor intaadan dhibcahaas ku shubin waa inaad si fiican u ruxdaa sharoobada ama goojada saad u taqaanba kule waa goojo yar marka 5 number markaas ugu shubo dhibcaha kadib caani waxaan bilaabaa inaan qaso ilaa ay ka xumboowaan ay xumba ay ka noqoto soo caanahaas baa loo diyaariyaa horta qaabka ugu saxsan oo loo diyaariyo waa taas markii laga soo gudbo marka ani labada caano waan isticmaalaa hore waa idinku sheegay dhowr sano isticmaalay bila xitaa ma sanadaba isticmaalayay soo Aptomil hadda waxay iga tahay dhamaad midda buluuga Aptomil baa lahaa waa dhamaad way iga dhamaanaysaa haddana wadanka aniga aan joogo waan ka waayay ma fahanteen way iga go'day wayna dhamaatayba waa la joojiyay baryahan sidii hore looma helo soo SMA hore u isticmaali jiray caanaha kale oo daasada cad ku jiraan aan u wareejistay maadaama aan ilmahayga kale aan siin jiray oo hore u isticmaalay hadda caanihii kan kale waa la waayay soo taasna weli way cusub tahay maanan furin caanaha waa kana waa idin tusaaya waa sijil weli buuxasheed way ku dhigan tahay qaatadeed waxay dhan meesha ku jirtaa insha Allah ayadana markaan furo anigoo qasaayo waa idin la soo wadaaga tan baa rabaa kow inaan ka dhamaado oo dhameysto ma fahanteen soo qaadadaas saas baad ugu shubanee iyo numberka waa iskula xisaabtame insha Allah harajeyna inaad ka faa'iideen hadii oo adiga bacda dhan aad ka wada jarteen waxaad u isticmaali kartaa mindi afka hore wax yar baa saas ugu saxaysaa si ay iskula ekaato jikada ama qaadada harajeyna hooyo walba inay ka faa'iido cunugaaga wuu kugu kubcaaya bucbuc buu kugu noqonaa caanooyinkan tijaabi haka caajisin sida kale hooyada 6 bil cunugeeda uu ka yar yahay naaska oo ha siiso hadii adiga aad ka maarmi weysidna number 1 kooda ku bilaabi kartaa waad siin kartaa number 2 gan waxa la siiyaa ilmaha 6 bilood ka weyn ina faanteena rajeynaya intaasan ugu baxaya assalaamu calaykum